xaflad aad u ballaaran oo lagu xuseeyay sanad guuradii 68aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ururka xornimo udoonka ee SYL xafladan soo qabanqaabiyeen ururka Somali Week oo ka dhacday magaalada London xafladan ka soo qayb galeen Soomaali aad u tiro badan oo ka kala yimid dhammaan gobolada dalka Ingiriiska dhammaan dadkaas oo shucuurtooda ay ka muuqatay wadaninimo iyo waliba Soomaalinimo waxa kale oo ka soo qayb galay xafladaas ciyaaryahanadii Soomaaliyeed ee iyagu u soo ciyaaray xulalkii qaranka Soomaaliya wasiirka xigeenka sportiga Saacali Afgooy waxaan leeyahay ku soo dhawaaw Somali Week xafladda ay soo qabteen iyo xuska SYL oo maaragtay ay u sameeyeen xafladdan qaaliga ah horta marka hore waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo marka labaad waxaan u mahadcelinaa ciyaartoydii hore ee qurba joogta ah meel kastoo joogaan inay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kaloo idin sheegaynaa annaga haddaan nahay wasaaradda dhalinyarada isboortiga waxaan soo wadnaa qorshe aan ku shaqayn doono qorshahaas oo ah in aan dib u soo celin doono ciyaartoydii hore ama kooxihii hore oo Soomaaliya ay lahaan jirtay nimankii u soo halgamay quruxda badan ee naga dambeeya caawdhan waxa loo duceynayay dadkii u soo halgamay wadankaas ee 13 nin caawdhan laga sheegaynay dhalinyarada dadkii caalamkan wasakheeyay maxaa la leeyahay dadka ciidda ku shubay wax kale ma hore fikrada islaam aan nahay ilaahay soo haday baan leenahay dadna oo soo halgameen dadna ooliyo ku shubayaan ilaa hadda wali way daba taagan yihiin wanaagii baaba ayaan wali u muuqanin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay wanaaga tuso maanta waxaan ka jeclaan lahaa intaasoo inaan isku nimaadno wadankeena annagoo joogna aan ku kulanno ilaahay xaggiisana waxba kama aha inaan maalmaha ka mid aan isku nimaadno annagoo wada caafimaad qabna إلهي كبرينا كل واحد ديارنا هنا عالمكاس نقول ماشوا كقاعدة كرنو معنا كقاعدة أما وقول كجاسي عيارة بدر international أو عيارتي وجينا ويجرا أو عالمكاس أجيني لكن بهذا كتير بيو حنا عيارتي quality لنا صارنا أو ضد كذا أي ما يعصوا جيدو مهمة الجود وحوي سبورتيga hadda Soomaaliya haddaan dawlad centrala oo xoog laan loo helin sportiga hadda suu kala qaybsan horta waliga saaraya taa marka waxa weey inaan horta dhayalsano loo baahan waxaana keenay kala daadsanaanta si dalka u kala burburay ayuu kana maartay xooga ahaanaya laakiin waxa muhiim ah wixii laga gaaray in la qabto dadka ku hawlan oo dalka gudihiisa ama dibadiisa hawsha ku wada annagu waa u mahadcelinaynaa cid kasta waxay qaban kartaa inay ka gaarto waa loo baahan urur kasta oo qurba joogta ah oo caawa halkan joogo iyo inta TV-ga laga daawanayso wadanku waa loo baahan yahay haddii uu soo noqdo dawladda ku meel gaarka ah waxaa ka duuban inay garoomada dhisto inay wadanka nabadda ku soo celiso ayadan waa inaan taageerno ma soo marin 20 sano ee burburku dhacay dawladda ku meel gaarka shaqada ay ka qabatay magaalada Xamar aniga Xamar waxaan tagay last 10 year 10 jeer oo iskaga noqday dawladda badan waa arkay laakiin runtii waa in lagu amaano Soomaalidu ma sheegto dawladda waxay qabatay laakiin dawladda ku meel gaarka prime ministerka iyo dawladdiisa waa dawladda ugu fiicneed ee soo martay after burburka maxaa marka hore waxaan salaami lahaa dhamaan dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladan oo ay noo qaban qaabiyeen dhamaan asxaabteeda Somali Week waxaan leeyahay waa mahadsantiin marka labaad kulli halka soo istaagay inaan wax badan dhahdo waxa la tahay dadkii ugu horeeyay ayaa ka dhawaajiyay qaasatan Maxamed Ismaaciil in dhalinyarada Soomaaliyeed looga faa'iideeyo fursada maartay ay ka heli karaan wadamada maartay Yurub soo Maxamed Ismaaciil sheegay ragga soo taagan inay Soomaalida
wax u qabtaan oo dhallinyarada ana in maaragtay la taageero oo aan lagu cadaadin waxqabadkooda si markaa ayagana ay uga faa'iideeyaan dhallinyarada marka kullu inta kaliya aan dhihi lahaa marka waa mahadsantihiin dhammaan iyo dadka Somali Week sanadkiisa iyo halkiiba jacaysiina ku kulanno hadduu Ilaahay raali ka noqdo Mogadisho hadduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan jeclahay inaan ku qabsanno 15 May innagoo nabada iyo waddankoo nabada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanayaa inaad waddanka loo duceeyo leenahay Ilaahay oo nabada noo soo celiyo adiga gacantaada ku jirtay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladan lagu xasuusanayo ama lagu xusayo 13kii dhalinyarada ahaa ee walaalaheena ahaa ee qarannimada iyo gobonimada iyo gumaysi iska dhicinka cagaha u taagay ee noo bilaabay waxay ahaayeen rag aanu ku dayano waxaan rajaynayaa dhalinyarta iyo lodka jooga iyo kuwa naga dambeeya kuwa kasii dambeeya inay saa ugu daydaan oo qarannimada iyo Soomaalinimada la sii xoojiyo waxay bilaabeen inaynu maartay dhamaystirno weeye waxaan leeyahay raggaas Ilaahay ha u naxariisto laakiin ragga ka dambeeya hawsha sugaysa inay qaban qaabiyaan oo ay waxa dhiman dhameystiraan oo Soomaalida xaaladeeda meesha ay marayaan ay wax ka bedelaan oo qiimeeyaan xafladana aad baan ugu faraxsanahay waa xaflad aad u qiimo badan inaan dalkeena iyo dadkeena iyo geesiyadii naga dhintay aan soo xasuusanno si kastaba ha ahaatee xafladan ku soo gabagabowday jawi aad u wanaagsan Maxamed Xasan Maxamuud Boocame telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada London